كلجك برشدة علوم تعافيماتك ماما أمينو كلجك برشدة علوم تعافيماتك ماما أمينو عمر هوري لغاغا فوري مقالة مقدشة إيو دمان قبلديدا ما شاء الله هوي أموغان هكا مقنا عمر هوري لغاغا فوري مقالة مقدشة إيو دمان قبلديدا ما شاء الله هوي أموغان هكا مقنا مامول هاجت سنيو معلمين لقو كلسو الحمد لله إلهي ما هاد اسكاله ما هاد دمان تيدنا الله يوسقناكي تنحيكتو وحاو ما دعيلنا يا دمان مامولكي iyo gudoomiyaha markaas isku soo agaasimay barnaamijkan maanta inuu meeshaan noogu dhaco iyo dhammaan maamulkii iyo macallimiinta iskuul dhamayaasin maanta waxaan igu soo talagalnay wax yar inkastoo waqtiga aad uu kaaga yahay haddana ciwaanka aan rabno inaan ku sameyno practicalka ama trainingkana uu asan yahay mid aad u ballaaran laakiin waxaan isku dayaynaa insha Allah 90% inaan ku bargareyn haddii Ilaahay idmo سؤال كواد هرت first aid محل ولا جيدا first aid سيد جواد شاكتن وارون يركض سيد شاكن وارون مرة والبو وكالمة وقف له كالمينا ما عرفتها قفا حنوسا هذا أو كالمة سيد ويران إنا أوتيل ما تودا يدمل هبل تق وحسك خاضب وحواي جرجات وقيب كم يدون غنا العملاء الحكم يدا قد كانوا كم في عوايو إنه نفسوايو gacmihi dad qof buluug noqday wali malaan marka qof buluug noqday kala sameeyna qaabkaas qofka foorari dhawarka laga dhabaxa saan mahaya sama qofka saasa loo dhabaxa ama maxaa la sameeyna qofka inta gadaal laga soo galo in cadaadis laga soo saaro caloosha buufka korkiisa kadib wixii ku jiro marinka hawada saas loo soo bixiyo ciyaalkii dadka waaweyn way kala duwan yihiin ilmaha inta badan oo halka sano ka yar faraha la isticmaalaya iyaga waxa waayo adoo kala feeraha way qabatay qaybteeni baraatikeen hadda waxa u jeednaa bukaan oo meeshan yaala saa u jeedin haday markay oo doctoreysada oo soo sharxaysa waxay tiri gargaarka degdega waa loo qaybiyo ay ahayd primary survey and secondary survey okay marka ugu horeen primary survey maxay ahayd doctor ABC mid maxay ahayd dangerous had waxa eegaya agaariga waxa iska fiirina environment meesha aad joogto haday meesha halis tahay ma galaysid waayo waxa hadaa meesha aad tagtid waxa laga yaabaa naftaada inaa halis gadarsid bukaankana inuu halis galo laga yaabaa bukaanka inuu joogo meel dabka ku cooy meel gaariyaal marooyin dangerous xaga ugu baxnay oo dhiideed haddana waxa galaynaa qodobkeeni ahayd ABC oo ahayd ugu horeen waxa fiirinaynaa qofka inuu oo maxallaha uu mirkiisa taamaya in kale hello fiqi mi maqluusa fiqi bukaanka had waxa aragnaa inuu san wax oo responses leeyahay oo mir daboolan yahay hadda bukaanka markay aan waxa filaynaa marinka hawada bukaanka marinkiisa wirisaana loo furaa bukaanka hadda wuxuu furayaa marinka hawada diida waxay breathing qofka inuu neefsanayo in kale inaa fiirin waxa taawnaa feeriisa fiirinina sidoo kale waxa dhiinsanayna inuu neefka soo baxays iyo sidoo kale inaan dareeno qofkan inuu neefsado waxa inoo soo baxday qofkan inuu soo wax neefsi lahayn sida ahayd circulation haddana waxa fiirinaynaa qofkan garaaca wadnihiisa garaaca wadnaha meelo badan laga fiiriyaa waxa kamid ah gacanta kamid ah waxa kamid ah ii sheegay xusulka maxaa la inta kamid ah hadda anagu waxa fiirinaynaa bukaanka inuu garaaciisa leeyahay bukaankan wax oo garaac ma ka socdo that means inuusan bukaankan uu neefsano oo garaacsan lahayn marka haduusan bukaankii uu mir daboolan yahay garaacan uu lahayn waxa u sameeynaa CPR sida noo sheegtay
qof jabay caawin si loo caawin lahaa maybe waxaa laga yaabaa qof inoo jabaa guriga ku aragtiin inoo gacanta ka jabay saa u caawin laheedeen horeen waa inaa haystaa alwaaxyo ama baakado adag saa meesha jaban ugu celiso gacanta qaybta kore ilaa iyo qaybta hoose waxay ku aadine baakad ama ilwaax waxaa aad haysatid ama haddaa haysatid soo qaadanay ama faashad saa ugu duubtid qofka baakada laba dhinac saa ugu soo wareejisid anta waa ku xidhnay sababta ugu xiran waxay tahay lafta inaynan nuxnuxsi sameynin magacaygu waa Ciraaq Axmed Nuur waxaa ka socdaa iskuulka Alawaar ugu horeyn waxaa aad iyo aad ugu mahadcelinaa bahda Maama Aamino College oo maanta na siinayeen trainingkan ku saabsan gargaarka degdega aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waa Aadan Macalin Ibraahim waxaan ka socdaa iskuulka Dhamyaasiin maanta waxaan soo booqday private-ka ama ishaak isbitaalka loo yiraahdo Maama Aamino College maasha Allah maanta waxaynu soo jeedeen barnaamij la yiraahdo First Aid barnaamijkaas oo aan ka faa'iidnay waxyaabo badan kuwaas oo kamid ah sida loo sameeyo gargaarka degdega ah waxa kamid ah oo aan ka faa'iiday waa maxay gargaarka degdega ah kaasina waa kaalmada koowaad ee loo fidiyo dhibanaha inta la geyn goob caafimaad waxaa leeyahay iskuulka Maama Aamino College-ka jira joog mahadsanid dhammaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. aad xiriir noogu yahay darteeda intaas aan kusoo dhoweynayna haddii ilaahay idmo waxaan rajeynayaa marka maalmo badan kale inaan isgaarki doonno haddii ilaahay idmo koley waxaan rajeynayaa in wax badan faa'iideen 5%, 10, 20 waxay ahaato oona berito ay idin anfici doono haddii wax su-aal aysan jirin waxaan rabaa inaan intaas kusoo dhoweynayna haddii ilaahay idmo haddii su-aal jirtana waa lisweydiin karaa wax su-aal la weydiiya سؤال مقبتين قصح معنا هاي وما سنتين uguna maqsuudinayaan maadooyinka ay bixiyaan haddaanku guud maro qaybuhu bixiyo kuleejka maadooyinka umulisiyo kalkaalisiyo quudinta maatidiyo shay bariistiyo maada ah barashada ultrasomka waxaanan ka marnayn qalab baraatika sax ah oo dhammaystiran Maama Aamino College masadkeedu waa itusoo itaabsi hamogaan college-ka Maama Aamino oo ha ka maqnaa